uma baahnid inaad dumiso dhisme ama aad xabad ridid ama aad geed jartid laakiin waxaad awoodaa inaad ummad dhan khariidada ka tirtirtid waxaasoo dhanna waxaa kuu sahli kara waa hubka biyoolojikaalka ah kaasoo ku soo noqday wararka kadib soo bixitaankii koroonaha iyo eedeymaha ah in si ula kaca loo soo saaray fayraskan haddii ay taasi run tahayna iyo haddii kaleba waxaa lagama maarmaan ah inaynu ogaano waxa uu yahay hubka biyoolojiga ahi haddaba si aynu arrintaasi fudud isula fahanno aynu tusaale ahaan u soo qaadanno in koox saynisyahano ah ay ka shaqaynayaan falanqaynta iyo aqoonsiga daciifnimada mid ka mid ah cudurdhaliyayaasha kaasoo aafeeya noolayaasha si loogu helo dawo lagaga takhaluso balse waxaad ka soo qaadaa oo qiyaasaa in isla kooxda saynisyahanada ah ay qabanayaan shaqotii hore lamida oo ah inay baadhayaan cudurdhaliyahan laakiin markan ay ujeedkoodu yahay inay gartaan xoogga cudurdhaliyahaas ee aysan baadhin halka uu daciifka ka yahay haddana ujeedkooduna aanu ahayn inay xanuunkan dilaan balse ujeedkoodu yahay inay faafiyaan taasina waa bilowga horumarinta hubka biyoolojiga ah kaasoo laga diyaariyo noolayaasha ilma aragtida ah sida bakteeriyada fayraska ama fangaska si loogu faafiyo cudurrada dilaaga ah dadka xoolaha iyo dalagyada sababta hubkan loo adeegsanayana waa xawaariyeysa faafitaan ee aadka u sarreeya iyadoo cidda la bartilmaamaysanayana aanay ogeyn ilaa uu ku faafo maxaa yeelay waa hub qarsan oo aad u jaban wuxuuna u baahan yahay laab lagu diyaariyo iyo dhowr aqoon-yahan waana hab ka duwan qaabka loo sameeyo hubka caadiga ah ee qaaliga ah haddii loo baahdo in la burburiyo 1 kiiloomitir oo square ah waxay ku kacaysaa $2,000 balse haddii la damco in la burburiyo iyadoo la adeegsanayo hub biyooloji ah waxay ku kacaysaa $1 oo kaliya marka la eego baadhisaha ay sameeyeen ururada caalamiga ahi natiijada ka dhalanaysaana dabcan waa musiibo aad u weyn magaciisa markaad maqasho waxaad moodaysaa inuu yahay hub casriya laakiin dhab ahaantii waa hubka ugu da'da weyn ee hubka wax kumaada taariikhda dhacdadii ugu horreysay ee la diiwaan geliyay waxay dhacday intii u dhaxaysay 400 ilaa 500 oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise calayhi salaam waxayna dhacday kadib markii taliya Giriiga oo la odhan jiray Solon uu ku shubay sun biyaha webi ay cadowgiisu ka cabi jireen sidaa darteedna ay ku xanuunsadeen iyadoo markii dambena uu si fudud uga adkaaday xilligan casriga ahna qisada adeegsida hubka biyoolojiga ahi wuxuu soo bilaabmay kadib markii ciidamada Ingiriisku sanadkii 1763 miilaadiga kadib markii ay hadiyada u hadiyeeyeen dadkii asalka ahaa ee qaaradda Ameerika hadiyadahaas oo lagu qariyay xanuunka furuqa kaasoo ku faafay markii dambena ay ku madheen malaayiin daraasad ay samaysay National Library ama maktabadda qaranka ee Mareykanka taasoo sheegtay in 500 oo milyan oo qof ay u dhinteen cudurro qarnigii la soo dhaafay iyadoo ay ku jiraan 10,000 oo u dhintay cudurrada iyo sumaha sida uu la kaca ah loo sii daayay ama loo faafiyay iyadoo badankooduna ay ku dhinteen gacmaha ciidamadii Japan kadib dagaalkii ay ku qaadeen Shiinaha intii u dhaxaysay sanadihii 1932 ilaa 1945 intaa kadib si la isaga ilaaliyo dhibkiisa weyn waxaa la galay heshiisyo caalami ah iyadoo ka ugu caansan uu yahay heshiiskii Geneva ee waddanka Switzerland sanadkii 1972 kaas oo mamnuucaya horumarinta soo saarista iyo kaydinta hubka bakteeriyada ah iyo hubka sunta ah xitaa ujeedooyin nabadeed ama mid difaaceed ku doonaha ahaadee balse arrinka halista ah ayaa ah in heshiisyada aysan u hoggaansamin wadamo badan iyadoo in badan oo ka midana ay diideen inay saxiixaan arrinta ugu khatarsanina waa in hubka noocaas ah sidoo kale uu ku dhici karo gacanta shakhsiyad aan dawli ahayn kuwaasoo si khaldan u adeegsan kara waxaana jirta dhacdo aysan dunidu weli iloobin taariikhdan casriga ah iyadoo sanadkii 2001 loo diray fariimo lagu soo looday xanuun siyaasiyiin iyo dad kale kuwaas ku nool Mareykanka iyadoo falkaasna ay ku dhinteen 5 qof kadibna baaritaanadii waxa lagu ogaaday inuu ka dambeeyay nin caalimo kaasoo muddo sanado ah ka shaqaynayay waaxda difaaca hubka biyoolojiga ah ee ciidanka Mareykanka kaasoo markii dambe ay arrinkiisa la ogaaday inay isdilay
gabagabadii waxa wali socda ogaal la'aanta ka jirta halka uu ka soo unkamay asal ahaan xanuunkan koroonuhu iyadoo ay jirto kala shaki dowladaha qaarka la qabaan iyo eedeymaha midba kan kale ku eedeynayo balse Ilaahay baa u cilmi badan aragtidaada bini'aadamku ma ku dhawaaqi doonaa dagaal ka dhan ah hubka biyoolojiga ah mise wuu sii wadi doonaa horumarintiisa iyo haysashadiisaba ra'yigaagana noogu reeb qaybta hoose ee commentiga